waan hubaa waad yaabi doontahay. Soomaalidu waxay tidhaahdaa isla mar ahaantaasina ay ku mahmaahdaa cimrigaaga oo dheeraada geel dhalaya waa ku tusaa. Waxaa kaloo yidhaahdaan adduunyada nin noolow maxaa aragti ku laaban, oo iga jeedaan inay jirto qofka hadduu cimrigiisu ayaamo badan adduunka sii kor saarnaaday inuu arkayo wax badan oo ka yaabiyo. Waa wareer iyo duni macaanku ka dhammaadaye. Waxaan daawaday kuu wadaa mid ka mid a sheekooyinka maskaxdaada jahwareerin doona, isla mar ahaantaasina aad si weyn ula yaabi doontid. Weliba maqashay inay jirto maalqabeen xayawaana weliba ka hanti badan kumanaan kun oo qof oo adduunkani kor saaran. Hadda waa xayawaan waxaan ka hadlayaa fahan siiba waa xayawaanka bisada loo yaqaano. Lana cat waa mid ka mid a bisadaha adduunkani ku nool. Buugga dhacdooyinka adduunka lagu ururiya ayaana loogu diiwaangeliyey inay tahay bisada adduunka ugu hantida badan leh. Waxaabay madaxa ka jartay 100 milyan oo dollar. Weliba waxay leedahay dhammaanba akoonnada social media ay ku isticmaasho magaceeda. Bal adigu isweydiiyo oo ka fikir qaabka ay bisadani dhaqaalaha u samaysay iyo habka ay ku soo galeen. Bisada Lana cat ayaa imika ku raacaysanaysaa carshiga maalqabeenka xayawaanleyda bisada ah, iyadoona loo diiwaangeliyey inay tahay xayawaanka bisada ugu hantida badan uguna dhaqaalaha badan la guud ahaanba bahda xayawaanleyda ee bisada. Lana cat ayaa la guddoonsiiyey shahaadada dhacdadani ay ku mutaysatay, isla mar ahaantaasina ay ku gashay buugga dhacdooyinka adduunka. Si kastaba ha noqotee, dad badan oo arrintaasi ka falceliyey ayaa yidhi wallee bisad haddiiba ay hanti intaa leeg tabacday, adduunka macaankii waa uu ka dhammaaday. Ha la yaabeen oo ha ku jahwareerin inay bisadu ay leedahay waxaasoo dhaqaalaayana waxaa jirta inuu jiro ay ka sii dhaqaalo badan bisada oo isaga laftigiisu aan dab yar shidaynin. waa sida aanu ka soo xiganay ila wareedee. Bal adigu duuduub oo kolba dhinac u qaado, isku soo wada ururiyo maxaa ay kula tahay. waa soo saaristii Yaxya Muuse Ibraahim, Nairobi. habeyntii farsamadii isku dubaridkii injineer Mubaarak Axmed Muuse Maano.